السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنه ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geyga Soomaaliya qodobadaan idin haya waxa qayb ka noqon doona xisbiga uu hogaamiyo madaxweynaha sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay in la ballaarinayo iyadoo xubno muhiim ah oo ka tirsan golayaasha golaha shacabka aqalka sare aqalka hoosena lagu soo darayo hadaba waxaan ku soo gudbin doonaa kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo warbixino amuurta ku saabsan sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa dagaal qaraar oo ka dhacay banaanka magaalada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo xubno ka tirsan kooxda shabaab la sheegay in halkaas lagu laayay sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa Cabdiqaadir Firdhiye oo kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka maamulka waqooyi bari hadaba go'aano dagaal miyuu qaadanaya Cabdiqaadir Firdhiye faahfaahinta ayaan ku soo gudbinayaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaa saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada aan ku bilaabay wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac ee la soo dhaafay madaxweynaha Farmaajo uu kordhiyay kulamada uu la qaadanayo xubnaha saameynta leh ee golaha shacabka aqalka sare iyo aqalka hoose in xisbigii nabad iyo nolol la ballaariyo isla markaana lagu soo kordhiyo xubno saameyn leh oo aqalka sare iyo aqalka hoose ah ayuu Farmaajo soo jeediyay isagoo kulan la qaatay xubno hoosaadka golaha sharci dejinta ee xisbiga nabad iyo nolol xisbiga waxaa la sheegay in xubnaha saameynta leh ee ka qayb noqonaya ay noqon doonaan kuwa intooda badan ka soo kala jeeda maamulada koonfur galbeed internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle iyo waqooyi bari iyada oo xubnaha ka qayb galay shirki ugu dambeeyay ee Farmaajana la sheegay in intooda badan ay isla soo qaadeen in xisbigu u baahan yahay rag tayo leh oo fagaarayaasha siyaasadda ka difaaci kara xisbiga isla markaana doorashada marka la gaaro u ololeyn kara in xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne Farmaajo la doorto golayaasha deegaanka ee Muqdisho laga qabanayo ayaa la sheegay in xisbiga nabad iyo nolol uusan qayb ka ahayn iyadoo dhaliilo xoogan arrinkaasi ay dul hoganayaan madaxweyne Farmaajo ayaa xubnihii uu la kulmay wuxuu u sheegay in qof walba oo saameyn leh oo siyaasadda Soomaaliya ku jira ama qurbo joog ha noqdo oo dhaqaalaha laga helo ama gudo joog ha noqdo oo siyaasadda ha karkariye xisbiga albaabadiisa ay u furan yihiin iyadoo la filayo in xubno saameyn leh oo ka mid noqonaya xubnaha xisbiga nabad iyo nolol ay durba gaareen xarunta xisbiga oo ku taala nawaaxiga garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho markana waxaan eegaynaa wararka laga helayo gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxay tilmaamayaan in dagaal kooban uu ka dhacay barqanimadii maanta banaanka magaalada aadan yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe dagaalka waxaa la sheegay inay qaadeen xubno ka tirsan macawisleyda beesha xawaadle iyo kuwa abgaal oo la sheegay in goobta weerarku uu ka dhacay ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda shabaab ka hor dagaalku intuusan dhicin waxaa la sheegay in la maqlay qaraxyo waxaana qaraxyadaasi la sheegay inay ahaayeen kuwa la eegtay xubno ka tirsan kooxda shabaab sargaal sare oo ka tirsan ciidanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa wuxuu tilmaamay in khasaare ballaaran la gaarsiiyay kooxdii shabaab ee halkaas lagu weeraray Masaajid Cali Guduud iyo aadan yabaal inta u dhaxaysa shabaabku habeenadii dhaqdhaqaaq ay ka bilaabaan duqeymo diyaaradeed ayaana tiro dhowr jeer halkaas ka dhacay maxaana duqeymihii ugu dambeeyay la sheegay inay ahaayeen kuwa si sax ah loogu eegtay kooxdii shabaab ee halkaas lagu weeraray saraakiil sarsaro oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxay tilmaameen inay hadda baarayaan khasaaraha guud ee ka dhashay duqeymihii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay iyadoo macluumaad kale helayana ay tilmaamayaan in duqeymuhu ay ahaayeen kuwa isdaba joog ah oo dhowr jeer oo kala duwan dhacay al-shabaab waxaa la sheegay in jab xoogan ay kala kulmeen duqeymaha halkaas ka dhacay oo hadda ay u dheer yihiin in dagaalo toos ah lala gelayo ugu dambeyntiina hogaamiyaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye ayaa la soo warinayaa inuu kulan degdeg ah iskugu yeeray saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka waqooyi bari xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in dhowrka saac ee soo aadan go'aamo adag oo dhanka dagaalka ah ay soo bixi karaan
cabdiqaadir firdhiye waxaa la sheegay inuu si weyn uga carooday arbushaado iyo sidoo kale weeraro kookooban oo ka dhacay buuqdharkeen iyo guumays saraakiisha uu la hadlay dhammaantood wuxuu u sheegay in ay heegan galaan oo ay isdifaacaan isla markaana ay dagaal qaadaan haddii ay culays dareemaan laakiin ceebta ugu weyn cabdiqaadir firdhiye xilligan uu ka cararaya ayaa waxay tahay inuusan la kulmin ceeb ah in isagoo aan caleemasaarkiisu dhicin in xabad ay ka bilaabato gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waana waxa kaliya cabdiqaadir firdhiye xilligan uu ka cararayo saraakiisha uu la kulmay cabdiqaadir firdhiye waxaa la filayaa inuu u soo bandhigo ajandayaashiisa waaweyn oo ay ka mid yihiin difaaca ceergaabo iyo qabashadeedaba waana qodob kale oo muhiim ah oo cabdiqaadir firdhiye uu tiro dhowr jeer uu ka dhawaajiyay taasi oo uu ku sheegay in ceergaabo qabashadooda ay tahay waajib guud ahaan wararkeena waa intaasi nabadgeliyo internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha